كما الريحان والحنة كما الريحان والحنة. أنا من مكة وأتغنى بجودي واسألوا عنا. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. janalka aad daawanaysaan waa Alkarma Official. maanta waxaan idin soo gudbin doonaa qodob ku saabsan saaxiibka dhabta ah. saaxiibtinimadu waa xiriir aadanaha dhexmara oo laba qof iyo in ka badan ay sameeyaan. waxay kaga duwan tahay xiriirada kale, waa mid ku dhisan ixtiraam laba dhinac ah oo kalgacayl iyo is-qiimeyn ku salaysan. qofka saaxiibka kula ah waxa uu dadka kale kaaga duwan yahay, waxa uu garab kuu yahay markasta oo aad u baahato. saaxiibka rumaad astaamaha uu leeyahay dunida way isu khilaaftay, ilaa dad qaar ay yiraahdaan waxyaabaha aan la heli karin ee mustaxiilka ah ayaa ku jira. saaxiib rumaad dhab ahaan lama heli karo miya? si aan wax badan ugu ogaano waxaan idin soo xulay xigmado ku saabsan saaxiibka rumaad iyo waxa ay dunida ka aaminsan tahay. xigmado ku saabsan saaxiibka wanaagsan. saaxiibtinimadu ma dhacdo sida cadceedda oo kale, ma dhalaasho sida barafka oo kale, ma dhimato haddii uu jacaylka dhinto mooyaane. saaxiibtinimadu waa shimbir garba la'aan ah. saaxiibtinimadu waa kalgacayl iyo is-aaminaad. saaxiibtinimadu lama beego, danna ma laha, lacagna laguma qiimeeyo. miraha xilligii mar baa la gurtaa, laakiin saaxiibtinimada ilbiriqsi kasta ayaa miraheeda la gurtaa. saaxiibtinimadu waa ubaxa keliya aan qodxo lahayn. saaxiibtinimadu waa wejiga keliya kalgacayl u leeyahay, laakiin waa midka aan miririn. saaxiibtinimada dhabta ah ma dhammaato. saaxiibka rumaadna mar kasta kaama danaysto. saaxiibtinimadu waa sida dalladda roobka oo kale, mar kasta roobku sii xoogaysto si aad ah ayaa loogu baahdaa. saaxiibtinimada udugeedu waa rajo, malabkeeduna waa daacadnimo, saxansaxeeduna waa kalgacayl. waxay ku baaba'daa waa geeri ee qura. زرعنا الفل والكادي وغنينا مع الشام.